dowladda waddanka Mareykanka ayaa 18 magaalo oo ku yaala waddankaasi waxa ay ku soo rogtay bandow soconaysa xilliga habeenkii. bandow sidan oo kale oo hore loogu soo rogay magaalooyinka Mareykanka qaarkood ayaanay waxba ka soconin. rabshaduna weli waxa ay ka socdaan qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka. rabshadahan oo ilaa toddobaadkii hore socday ayaa waxa ay ka dhasheen dilkii nin madowga Mareykanka ka tirsanaa oo aan hubaysnayn oo toddobaadkii hore ciidamada Booliisku ay ku dileen magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. wararkii ugu dambeeyay waxa inta badan inoo soo dira wariyahayaga Minnesota deeq darajo. tan iyo markii ay bilaabeen dibadbaxyada cabashada ee laga soo horjeedo dilkii loo geystay George Floyd ayay taas dhalisay khasaare badan kadib markii ay qaar ka mid ah dadka dibadbaxyada sameynayay ay bilaqeysteen goobo ganacsi oo kala duwan. Booliiska Mareykanka oo kaashanaya ciidamada kaydka qaranka ayaa xalay howlgallo ballaaran ka sameeyay 18 magaalo oo ay ka dhacayeen banaanbaxyo rabshado wata xilli magaalooyinkaasi bandow lagu soo rogay. magaalooyinka sida caasimadda Washington DC, New York, Minneapolis, St. Paul, Los Angeles, Philadelphia iyo Atlanta ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii ah si looga hortago khatarta ay maleegayaan kooxaha qaar oo caadaystay boob, dhac iyo dab la qabadsiiyo xarumaha ganacsiga. balse waxaa sidoo kale dhinac socda dibadbaxyo kale oo si nabdoon u dhacaya kuwaasi oo had iyo habeen taagan banaanka wacadna ku maray in aysan joojin doonin ilaa iyo inta xabsiga loo taxaabayo dhammaan booliskii ku lugto lahaa dilkii George Floyd. xaaladda Minneapolis oo ah ubuucda halka ay dibadbaxyadu ka bilowdeen ahna halka George Floyd uu ku dhintay ayaa weli ah mid aan la hubin xilliga ay xasili doonto. gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa shalay ku dhawaaqay in la bilaabi doono baaritaan baaxad leh oo lagu sameynayo ciidamada booliiska ee Minnesota dambiyadii ay geysteen 10kii sano ee la soo dhaafay. halkani waa goobtii lagu dilay George Floyd waxaana kula kulmay dad Soomaaliyeed oo ka qayb galay banaanbaxa kuwaasi oo la hadlay TV-ga Universal. bismillaah magacaygu waa Bila Xasan waxaan halkan u imaaday inaan ka mudaharaadno dilkii loo geystay ninkan walaalkeen oo madowga ah oo booliis cadaan ay ku dileen 25kii bishii la soo dhaafay. halkan waxaan u imaaday inaan shucuurteeda muujiyo arinta halkan ka dhacdayna waxaan rabnaa in waxaan ka codsanaynaa booliiska iyo Hennepin County Attorney Mike Freeman iyo Keith Ellison oo hadda lagu wareejiyay in 3 nin oo kale oo booliiska ahaa oo halkan ku dilay oo ku xasuuqay ninka madowga ah in ayagana cadaalad la keeno. waxaa la yiraahdaa Suleymaan Ciise waxaa qof ka tirsan dhalinyarada gobolkan Minnesota degan oo gobolka waana meesha lagu dilay wiilkii madowga George Floyd. marka maanta waxaa imaanay inaad tusno taageero looga soo horjeedo dilkii dhacay inuu ahaa xaq darro. askartii dishana Weli la soo xiray 3 ka mid ah mid ka midna inta la soo xiray la dhahay waxa lagu qaadayaa dambi oo kan ugu yar dambiyada oo laga soo qaaday qof waxba dilin ama uu la kac uga dambeeynin. waxaa sidoo kale la filayaa in gobolka Minnesota ay soo gaaraan madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence. Obama ayaa lagu wadaa in maalinta Khamiista uu soo gaaro gobolka Minnesota si uu uga qayb galo tacsida George Floyd. hadalhaynta shacabka magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St. Paul ayaa ah halkee ayay soo marayaan dibadbaxyaashu meel miyaa gubanaysa booliiska ma jooga bandowgii la soo rogay ma dhaqan galay maxaa xiga oo la filayaa idinku ma nabad qabtaan xaaladda xaafadda Cedar Waside mise nabad qabaan ganacsiyada suuqa Carmel. haddaba waxay dad badan isweydiinayaan iyadoo weli aan si fiican looga soo kaban waxyeeladii laga dhaxlay welina taagan xanuunka coronavirus in qalalaasaha hadda socda uu xaalka ka dhigi doono anigoo aabahay qaatiyan ka taagan buu aabihiina keensaday oo la macno ah rajadii yareed ee laga qabay in dhaqaale ahaan laga soo kabto oo cirka isku sii shareertay. deeq darajo Universal TV Minnesota. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga deeq darajo oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis. wixii warare ee ka soo kordha xaaladda dalka Mareykankana dabcan haddii aan la yiraahdo isaga ayaa inala socodsiin doonaa.